iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen gobolka Togdheer shilalka ka dhaca gudaha magaalada ayaa taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Togdheer Jaamac Ismaaciil Cali Jaamac Dhagjar waxa uu ka hadlay shil ka dhacay gudaha magaalada oo ay isku galeen bajaaj iyo gaari noociisu haasayn kaasi oo sababay dhimashada laba qof oo dhalinyaro ah waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan waxay weydiiseen habeer hore halkan ka dhacay magaalada dusheeda waxay ahaayeen laba gaari oo halka isku dhacay marka laba qof baa ku geeriyooday qofna halkan ku geeriyooday qofna xalay buu ku geeriyooday Hargeysa qoftu war ku geeriyooday labadoodaba Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Allah shaafiyo leen waxaad moodaa waqtiga shilalku magaalada gudaheeda marka loo eego way badan inta badanna waxa sababa gaadiidka la yiraahdo bijaajka oo magaalada ku batay oo buux dhaafiyo oo ay isla ognahay marka xilligan waqtigan hadii ay beedankeeda leeyahay sida ay ku yihiin suuqyada iyo istaraadka magaalada ayaa shilalka ugu badan ka yimaadaan sidoo kale taliyuhu waxa uu fariimo adag u diray gaadiidka bajaajka ama tigaha oo uu sheegay taliyuhu inay geystaan shilalka ugu badan ee ka dhaca gudaha magaalada waxaana uu taliyuhu sheegay inay ka soo saari doonaan gaadiidkaasi go'aamo adag waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan go'aamo badan oo hore laga soo saaray go'aan guddi nabadgelyo laga soo saaray oo shaqeynaya jira haddii Allah ka dhigo go'aamo kalena inaynu oo ku sii xoojinayno iyadoo in kaga hortagayna dhibka iyo shilalka bulshada waynu ka samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo marka taasina sidaas u dhacay cidii ku dhibatay waynu u ducaynay cidii dhaawantayna waynu u ducaynaa Allah shaafiyo insha Allah billahi kariim waxaan leeyahay oo horena fariin ugu diray gaadiidka bijaajka ah aynu hadee iidankeeda leeyahay ku isticmaalayna magaalada dhexdeeda dhibaato fara badan bay ku hayaan bulshada cid walbana way ka marxaad furaysaa dadweynaha waxaan hadii Allah ka dhigo ka codsanaynaa gaadiidka sidii waxa weeyaan dhibaatadooda loo yareyn lahayn loo khafiifin lahayn laga shaqeeyo sidaasaan ugu baaqayaa bulshada reer Burco oo aan ka codsanayaa waxa weeyaan hana la caawiyo booliiska hala gacan qabto xiriirka booliiska iyo dadweynaha wax ku qabsoomaan dhinac qura waxba kuma qabsoomaan marka saas oo leen hadii Allah ka dhigo insha Allah billahi kariim inaynu wax ka qabano mar walbana diyaar baynu u nahay waanaynu wadnaa waan ku sheegay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa gobolka Togdheer ku soo badanaya shilalka ka dhacaya gudaha magaalada kuwaas oo sababa dhimasho iyo dhaawacba